inaan ka hadalno hawlaha socda ay ka koobtahay wacyigelinta codbixinta kaar qaadashada caqabado horle oo ka hor yimiday sidii dadka loo diiwaangelin lahaa taasi oo koob ka tahay internetka oo aad ugu culus wacyigelin la'aan oo goobaha magaalada ka baxsan dhammaantood wax wacyigelin oo ka dhacday ayna jirin waxaan faraynaa markaasi hadduu ilaahay idhaahdo guddiga komishinka qaranka in wixii culays iyo dhibaato iyo cabasho bulshadu ay qabto annagoo ku hadlayna afka bulshada degmada Boorama waxaan faraynaa in hawlahaasi si degdeg ah ay uga jawaabaan beddelkeedana ay la yimaadaan waxaa jirta dhalinyar tababar aan la siin oo ka hawlgelaysa goobihii oo komishanka ka socota dhalinyartaasi taybinkii baa ku adag wax kale iska dhaafay far keliya ku garaacayaan waad garan kartaa nin far keliya ku garaacaya waqtiga uu haysanayo marka waxaan leenahay annagoo si adag ula hadlaynaa guddiga komishanka qaranka in wixii caqabad ee jirta ay degdeg u xalliyaan ayaan uga fadhinaa kulleyna waxa weeye timekuna way nagu yaryahay waqtina way nagu socdaan sidaa daraaddeed waa inay degdeg uga jawaabaan culayska iyo caqabada guud ee saaran dhammaan diiwaangeliyayaasha runtii saaka waxa weeye taan hawshaan u joognaa halkan aynu ka hadlaynay waa hawsha ka socota diiwaangelinta ee degmada Boorama runtii wax badan baa saaka u soo fuulgalay bal sida ay u socoto hawshu dadku way fiican yihiin kuyugooda si fiican bay u joogaan way is ixtiraamayaan iyagu wixii tamartooda ah si fiican bay u socdaan waxaan haddaan laakiin ku wacyigelin lahaynba dadkii waxa weeye waanu ku wacyigelinaynaa inay isdiiwaangeliyaan ay u soo baxaan mar walba laakiin hadda qofku markuu saaka aroortii soo baxay oo ilaa hadda joogo waxa weeye uu daalayaa kii kale xaafadda ugu tagay ma imikaad socotaa oo halkeeban tegi si ayna taay u dhicin waxaanu leenahay oo wayna dhacday oo runtii waa caqabada haysata iminka hadda dadka isdiiwaangelinaya guddiga doorashooyinku runtii ama qalab ha noqoto ama dadka goobaha u jooga ha noqoto in ay mas'uuliyad iska saaraan waxaan rabnaa hawshan sida ay u socoto oo ay aad iska xisaaraan mana garanayno runtii usbuuca socda dadkan sidii qaabkii loo soo xulay oo waxa weeye ay ku soo yimaadeen ay hawsha way kaga bixi karaan ay yiraahdeen runtii ma garan karna annagu oo waxa weeye dadkii qofka hadda wax kale iska daa interview qofka qaadaya ayaa waxa weeye wuxuu qaadanaya imisa wuxuu weydiinaya halkeed ku dhalatay teed joogta oo qaadanaysa ugu yaraan 6 daqiiqo intaas oo kaliya haatay maxaad u malaynaysaa intii halka soo dara warqadda hootan kala qaad waxay noqonaysaa 15 daqiiqo ka badan inuu qofkii meeshii goobtii joogo dadkii kala cadeedii joogaan oo hadday imika hadda joogsadaan 50 qof ay joogaan 50kii qofba ay ilaa waxa weeye hadda sii joogaan taasina waa caqabad waxba ayna ka dhaqaaqayn runtii waxaanu leenahay guddiga doorashooyinku xil adag ha iska saaraan hawshan ha u sare kacaan goobta Sheekh Cali afartii dhinac ay ka koobnayd magaalada Boorama waaxiyood ayaa waxa la leeyahay 2 meelood oo kaliya hatay iminka sida Sheekh Cali Jawhar oo kale 2 goobood oo kaliya hato min 3 sanduuq la dhigay shay oo waxa weeye inta halkaas la iska diiwaangelinaya waa iskuulkii Sheekh Cali Jawhar iyo xaafadihii Kuwait ee ugu shisheeyay ee dhinaca kale ahaa ee iminka Qadijabalwo area taasina ummadii meel ay ku hagaagaan way garan laayeen goob saddexaad baa la noo sheego taasa jirta taasina wax ilaa hadda carqalad ay ka dhaqaaqilada ay miisaanka iyo tayada dhulka jooga intuba waajib ha si degdegana looga jawaabo anigu waxaan halkan hal eray ma ku darsanayaa xildhibaanada kulli cabashadu waa mid guud jirta laakiin waxaan leeyahay internetku haddii uu daciif yahay bulshaduna ay dareentay shirkado kale way jiraan laakiin qolada komishanku si degdeg ah arkaa uga jawaabaan assalaamu alaykum shirkaygan jiraayid wuxuu daaran yahay hawshani diiwaangelinta ee degmada ka socota run ahaantii waxaa xildhibaanadu soo sheegeen ama cabashada kale ka soo yeedhaysa dadweynuhu ma aha mid aan maqalnay waa mid aan dul tagnay goobaha laftooda kadib markii aan saaka goobo badan aan marnay een taabanay hawshu siday u socoto ma aha mid lagu qanci karo
waa mid dhaliil baahsani ka jirto kow qodobka ugu horeeya connectionka oo liita internetku aad u liita laba dadka hawshan qabanaya oo iyagina xarfihiiba raadinayo ay tigoodu aad u liito saddex maamulka goobta yadna qayb ka ah oo la isdhexyaacay marka gudida doorashooyinka qaranka waxaan leenahay wixii hawsha dhalay ku timaaday idinka mas'uuliyadeeda leh qalabka laftiisa goobaha meelaha qaar oo ka fadhiyo ayaan dul tagnay waxa loo baahan yahay marka waxay ummaddu nacam cabashada idin soo jeedinaysana dhagihiinu ma furna laakiin dhagihiinu u furnaadaan oo hawsha aad wax ka qabataan haddaan mas'uuliyiintii degmada nahay ayaa idinku waajiba hawshaasi si waajibka iniga saaran ka guta oo weliba cabashada ummadda een arkayno ay wax kala socon laayihiin wax ka qabta. Wassalaamu calaykum.